ilhaan cumar waxay doonaysaa in dalkeena ay ka dhigto sida Soomaaliya oo kale oo aysan ka jirin wax dawladda wax ammaan iyo waliba ciidan booliska buu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo warbaahinta kula hadlay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka waxa madaxweynaha Mareykanka uu weerar afka ku qaaday xildhibaanad ilhaan cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka oo ah gabar Soomaaliyeed laakiin ilhaan cumar ka soo madaxweynaha Mareykanka waxa uu weerar afka ku qaaday dawladda Soomaaliya oo uu ku sheegay inay sameeyeen dawlad adduunka ka jirta oo aan ahayn nabad iyo waliba ciidamo booliska laakiin waxaan suganaa qofkii u jawaabi lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay aflagaadada uu geystay Soomaaliya waxa xusid mudan in dawladda Soomaaliya ayna wali ka hadin arrinkaasi hadii uu hadlo maanta hadii uu hadli lahaa nin madaxweynaha ama madaxweyne hore waxa uu jawaabi lahaa madaxweyne hore ama siyaasi hadii uu hadli lahaa nin xildhibaan waxa uu jawaabi lahaa xildhibaan oo dhaqameed haduu hadli lahaa waxa uu jawaabi lahaa oo dhaqameed kale halka hadii sheekh uu hadlana uu jawaabi lahaa nin kale oo sheekha waxa xusid mudan in Soomaaliya hadii uu hadlo nin maamul goboleed inuu u jawaabo nin maamul goboleed oo inaad ku qaadanba wax ka yar saacad ama saacad barkeed laakiin aflagaadada inta laga u geystay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ma jirto wax u jawaabaya hadii ay jirto ama hadii ay jirto dawlad ka tirsan adduunka ama Afrika haato ama Carab haato waxa laga yaabaa in loo jawaabi lahaa laakiin waxa la suugayaa qofka Soomaaliga ee maanta u jawaabi lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aan ka ahayn gabadha ilhaan cumar oo ay xifaadka guud ka dhaxeeyo dadka Soomaaliyeed ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa la isweydiinayaa waxaana xusid mudan in dadka Soomaaliyeed arrinkaasi ay ka hadlaan ama ay u gudbiyaan safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya bal waan suganaa in loo jawaabo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump